bangigii riyada, bangigii rajada, himiladii rumowday ee shacabka deegaanka, Shabeelle Bank, furihii aad faqriga kaga bixi lahayd. dadka shaqaaloobay ilaa hadda shaqo ka helay ilaa 884 qof waa shaqo ka shaqaalowday maalgelinta ay qaateen ilaa 3 bilyan lacag ka badan baa horay dadka loogu maalgeliyay adeegyada aan bixinay sida mobile banking helo cash iyo ogtiin sida macnaheedu bulshada ay u isticmaasho meel walba uu caawiyo. Shabeelle Bank waa nafsi baxay muddo naawulayeen bulshada Soomaaliyeed ee duruufaha kala gadisan la daalaa-dhacay muddada dheer. waa bangigii u horeeyay ay Soomaali dibadda u taagto waa hantidii shacabka Soomaaliyeed oo qof waliba saamigiisa ka gatay Shabeelle. waa bangi aan la kala xigin oo aad xilli waliba ka mid noqon karto mulkiilayaashiisa. diga iyo hayaanka lagu dhisayay bangi Soomaali u gaara ayaa ahaa mid muddo soo socday waxayna ahayd rajo ay dad badan sugayeen. dadaalka dibadda lagu taagay bangigan ayaa Shabeelle waa maalgeliyihii mustaqbalkaaga waana isha aad ka heli lahayd deyn shareecada waafaqsan oo ku rumayn karta rajada hiigsiga iyo himilada fog ee bangiga ayaa ah in bulshada muslimiinta ah ee dalkan Itoobiya gaar ahaan kuwa deegaanka ay helaan hanaan maaliyadeed oo salka ku haya shareecada Islaamka. bulshada xoolo dhaqatada u badan ee deegaanka waxa uu ka kaalin doonaa inay helaan maalgashi iyo deymo ay wax kaga bedelaan mustaqbalkooda waana riyo ay muddo dheer ku haminayeen bulshada xoolaha ku raacda walwal sulul bulaale ilaa dhaamoole iyo faafan. luqadda kulli ugu adeegno macaamiishanada waa luqadda localka luqadda Soomaaliga laakiin dokumentiga wuxuu ku qoran yahay saddexda luqadood ee luqadda dalka laga hadlo ee luqadda Axmaariga waxa ku waa luqadda Soomaaliga luqadda Axmaariga iyo luqadda Ingiriiska caalamiga ah ayuu ku qoran yahay bogano sidaas leeg saddexda luqadood isaguna uu ku qoran yahay isagoo kiibsiisa marka wadan ahaan dadka gudihiisa iyo national ahaanba waa bog la fahmi karo localna si gaar ugu adeegay bulshada Soomaalida oo si dhib yar marka hore foomamka xataa diyaarinayno kuwa lacagaha lagu dhigayo kuwa lagu la baxayo luqadooda ayuu ku qoran yahay marka saas dadku ugu adeegayna adeega uu bixiyo Shabeelle Banki kulli waxa arkaa adeeg aad iyo aad u wanaagsan macaamiishuna aad iyo aad ay ugu qancayso maxaa yeelay dadka ka shaqeynaya waa dadkaagii dadka ku adeegaya luqadda lagu adeegno waa luqadaadii marka qofka bilaadanka ah wax uga wanaagsan luqadiisa loogu adeego ma jirto marka ka macaamil ahaan aad baan ugu faraxsanahay aad baan u soo dhaweynaynaa xaqiiqdii waxaan dhihi karaa waa bangiga shacabka u adeegi lahaa kuna fududeyn lahaa mataqaanaa ganacsigooda iyo lacagaha inay isu gudbiyaan u fududeyn lahaa. kayso hantidaada goob ammaano ah dhigo oo ku dhaqaalayso bangi aad dib u dheefsan karto